halkani waa masjidka Cali Jimcaale waxaa laga dhisay degmada Waaberi agaarka number 4 ee magaalada Muqdisho waxaa salaada ku tukan kara halkii mar 5500 oo ruux masjidka Cali Jimcaale qaab ahaan dhismaha masjidka wuxuu ka duwan yahay kuwa kale ee dalka waxaana loo ekeysiyay qaabka masaajida wadanka Turkiga u dhisan yihiin masjidkan dhisma ahaan waxaa la soo bilaabay sanadkii 2017 taasi oo ka dhigan in heerar kala duwan oo soo maray dhismaha masjidkani oo noqonaya masjidka ugu weyn magaalada Muqdisho masjidka Cali Jimcaale wuxuu leeyahay qayb waxbarasho oo leh hoygii ay seexan lahaayeen oo loogu talagalay dadka wax ku baranaya qayb supermarket oo sidoo kale ay dadku ka adeegan karaan maqaayad iyo sidoo kale meel lagu kafee karo maamulka masjidkani ayaa sidoo kale masjidka u sameeyay baakina gawaarida loogu talagalay oo dhulka hoostiisa kuwaasi oo aad u badan iyo sidoo kale barxad masjidka ku wareegsan masjidkani waxa lagu magac daray aabaha dhalay Axmed Nuur Cali Jimcaale milkiilaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom shirkadda dhismaha masjidkani waxa gacanta loo geliyay shirkadda Bruj taasi oo gacan ka geystay dhismaha masjidkani isla markaana u ekeysay masaajidada wadamada Turkiga masjidku wuxuu leeyahay laba manaaradood oo aad u dhaadheer maalinta Ciidul Adxada oo foodan lagu soo haysa ayaa loo qorsheeyay in masjidkani xariga laga jaro oo la daafuro kuna tukadaan shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo marka laga tago masjidka isbahaysiga islaamka aan lahayn meelo kale oo waaweyn oo salaadaha ciidaha ku oogi karaan injineer Maxamed Ibraahim Xasan injineerka masjidkan dhismihiisa gacanta ku hayay ayaa wuxuu sharxayaa heerar kala duwan iyo dhismaha masjidkani shirkadda fulisay mashruucan waa shirkadda Bruj Construction and Real Estate shirkadda Bruj oo shirkad la aasaasay 2010 waa shirkad aad weyn oo magaaladan howlo badan ka qabta injineero badan ayaa ka qayb galay oo shirkadda Bruj ka mid ah anigu odagii Bruj aan ahay laakiin injineero badan ayaa ka qayb galay oo Bruj ka tirsan shaqadan quruxda badan qabtay wixii aan u baahanana waxaan adeegsanay dadkii mihnada u gaar ahaa ayaan dhageysanay laakiin shaqada howlsheeda waxaa qabtay shirkadda Bruj Construction waxayna ka mid tahay mashruucyada waaweyn ee landmarkiga ah ee Soomaaliya maanta ay ka furisay shirkadda Bruj shirkadda Bruj waa shirkad aad u weyn oo construction iyo real estate ba ah oo leh production plants badan leh waxay leedahay qayb jidadkay leedahay waxaa kaloo ka mid ah oo xusud midan in jidkan masaajidka ku wareega ee laamiga ah ee 580 mitir ay fulisay shirkadda Bruj qaybta jidadka uu sheeqa ku tabarucay masaajidka inuu u noqdo sidii sahlaneed ee lagu soo gali lahaa waa jid lala sameeyay masaajidkana loogu talagalay marka shirkadda Bruj waa shirkad weyn ee maanta shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliya ayayna ka mid tahay mashruucan iyo mashruuca ku dhiganba ayada fulisay oo ah guryo waaweyn iyo xafiisyo oo ku dhigan oo compoundiga masaajidka ka tirsan shirkadaas ayaa fulisay injineero badan oo shirkadda ka mid ah ayaa ka qayb qaatay oo shirkadda aniga kaliya ma aha injineero badan shirkadda ayaa ka wada qayb qaatay dhismahan masaajidka